madaxweyne xasan sheekhow taariikh ku noqon mayso inan yar oo mimbarka intaad saarta kaaga niikiya masraxyadoo yiraahda mirmada xasan sheekh iyo dalka burburaya kuma ka badbaatay taariikh ma noqoto taariikh waxa noqoto waxa dalka gashata taariikh noqonaysa dalkaagi gaaja loogu baaba'aya abaaraha ka jira xaraad daran baa ka jira biyo la'aan baa ka jirta colaad baa ka jirta qabiil baa la isku leenaya inta baadiga maalinta qiyaamada ilaahay dushiisa saarto yiri ilaahu aniga ummadan ka masuula oo qaadanaya maalin quriya booyad biya waa $50 waa $50 booyad biya hal qoxoonti kuma shubin waxaana u cadeysanayaa shay kastood qabataan kaamirad ku qabataan kaamiradiina soo duubi lahayd fiila Soomaaliya taagan taa qodob baan kaaleeya qodobka labaad waxaan nagu tiri khudbadahaaga kamid ah waxaan nagu tiri Itoobiya waa cadawga Soomaaliyeed koobaad weeye baa tiri 100,000 dhulkii ay ku laayeen dhulka ogaadeen 100,000 oo olif meeshii ay ku laayeen ku unungooyeen shaladiga ku sacbinayo ku qoslayeen maanta ma waxay noo noqdeen walaalay noo noqdeen khudbada xigta noo soo sheegay adiga yiri duruufo inay ku bedeli karaan noo sheegay